الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقهرين بولا ليال وحين صدر دار من إله وين سبحانه وتعالى إني نكعب سنو عبسده إلهي حق وليه إني نكعب سنين صدر دار منا وأنا دردانك إلهي سبحانه وتعالى أوسيه ومديه نجي نجهريه نجبا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إلهي وحوت المامية إنه أدر دار مكوي إنجي نجهريه نجبا إن الله سبحانه وتعالى عن كعب سنو مرر بدن بعد مقشان يدول ليه إلهي كعبسو ورلاه كبق ورلاه كعبسو يدول قعد علينا مقشا وحيث إلا معناها إلى ذهين إلهي لقى عبسو ولا قبقاي معنى هيدو وامحي معنى هيدو كوبن ولا الوحوي إلهي كعبسو وحلوقة جيدا وحو إلهي سبحانه وتعالى وكفري لك هالي انت داودو وحو إلهي سبحانه وتعالى وكاري من سيدي أردن تهي كوضا حد وهذا إلهي سبحانه وتعالى ودوانيا dhammaan xumaan oo dhan iyo macsi kasto oo laga xaraam yeelana ka dheerow amarada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyay ahina la timaadana fartoon inta aad awoodo taas ayaa macnaheedu uu noqonaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo laga cabsado walaalayaal ramadaan kow baynu nidhi labaynu nidhi saddex baynu nidhi maanta waxaynu joognaa iyadoo 21 ah durbawo waxaad arkaysaa sida ay Soomaalidu wa tilmaanto shay kasto oo la tiriyay sida uu yar yahay waxaa tirisay ee aad ku tiri bari ay u dhamaanaya shalay bay ahayd markaynu ramadaan soo dhaweynayeen lahayn waxa weeye marxaban bika ya ramadaan ay soo dhawow shalay bay ahayd markaynu isugu bashaareynayeen ramadaan aynu lahayn ataakum shahru ramadaan bishi ramadaan baa idin timi fiha tuftahu abwaabul jinaan albaabada jannada la fura dhexdeeda wa tughlaqu fiha abwaabun niiraan albaabada naarta la xidhaa shalay bay ahayd markaynu sidaa lahayn aynu isu sheegaynay waxaanu ramadaan dhexdeeda ka helayno maantana gabagabadeedii baynu maraynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala baan ka baryayaa gabagabada aynu maranay inuu khayr iyo wanaag nagala kulansiiyo xumaan waxaynu fallay oo dhanna ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inoogu dambi dhaafo walaalayaal waxaan u yimi halkan ama khudbadan aan u taaganahay inaan laba saddex qodob aan idin raahdo qodobka koowaad waxa weeye in ay ka warramanay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tobanka ramadaan ugu dambeeyay wixii uu sameyn jiray ya ahadiista ku timina wax kamid la wadaago qodobka labaad in ay ku dhiiri galiyo inaad tobankaasi habeena ka faa'iideysataan qodobka saddexaadna inaan iftiimiyo bal habeenka loogu rajada badan yahay inuu leelatul qadriga uu ku jiro saddexda qodob iyo ducaayeen raacsanana hadii Ilaahay ogolaado walaalayaal nabiga sallallahu alayhi wa sallam tobankaasi ramadaan ugu dambeeyay waxa uu la yiman jiray dadaal ka ugu weyn buu la yiman jiray waxa ka waramaya dadaalka uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam la yiman jiray zawjaadkiisa baa ka waramaya Aisha radiyallahu ta'ala anha waxay leedahay kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fi al-ashr al-awaakhir ma la yajtahidu fi ghayri waxa uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam dadaali jiray tobanka maalmood ama tobanka habeen ugu dambeeyay ramadaan waxa uu dadaali jiray ma la yajtahidu fi ghayri in dadaal aanu sameeynin maalmaha inteeda kale oo dhan ama habeenada sanadka inta ka soo hadhay oo dhan dadaal aanu sameeynin buu nabiga sallallahu alayhi wa sallam tobanka habeen sameeyay jiray macnaheedu waxa weeye 360 ama 350 maalmood uu sanadku ka kooban yahay tobanka habeen dadaalka uu nabigu sameeyay jiray sanadka laba mid ahayn sida uu dadaalo tobankaana maalmo kale iyo habeeno kale uu dadaalay nabiga sallallahu alayhi wa sallam ma uusan jirin tolo muxuu nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu ku arkay tobankani ee uu ugu dadaalaya Aisha waxay leedahay radiyallahu ta'ala anha xadiis kale oo Imam Muslim uu warinayo nabiga sallallahu alayhi wa sallam haduu tobanka habeen uu soo galo ila dakhala al-ashr tobanka habeen ramadaan ugu dambeeya haduu soo galo ahya al-layl habeenkiisa waa nooleyn jiray wa ayqada ahlahu ehelkiisana waa toosin jiray وشد المئزر قنتنا وجيتسن جري بمعنى قنتنا وجيتسن جري علماء waxay tilmaamaan dadaal dheeraad ah qofku markuu shaqo badan qabanayo mariyuhu la laabta quntigu adkaystay laana shaqo dheer iyo hawl badan ayaa sugaysa waxay culimadu tilmaamayaan nabiguna sallallahu alayhi wa sallam xadiiskani Aisha ay noogu tilmaamaysa tobanka habeen hadduu soo galo tobanka habeenba nabigu waa nooleyn jiray su'aashiis weydiinta waxa weeye muxuu nabigu ku nooleyn jiray sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ku nooleyn jiray cibaado salaad buu ku nooleyn jiray quraan akhris buu ku nooleyn jiray wanaag oo la faru ku nooleyn jiray xumaha oo la reebo ku nooleyn jiray sadaqada oo la baxo ku nooleyn jiray dadka oo wanaag iyo khayrka loo tilmaamo oo waxa weeye loo noqdo tusaale wanaagsan iyo hormuud wanaagsan nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo ku nooleyn jiray
ducada ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam badin jiray istighfaarta ayuu badin jiray digriga noocyadiisa kala duwan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu la iman jiray inaguna walaalayaal in badan oo inaga midi marka ay maqlaan 10ka habeen waa la soo jeedaa lama seexdo inta tahajjudka ka horeeyo oo dhanba laandhuubay qaar badan ciyaarayaan oo meelaha waashmaanadu ay ilaaliyaan iyo maqaaxiyaha hortooda iyo meheradaha hortooda iyo habeenkii marka aad soo marto 1 iyo 12 habeenimo wax arkaysa iyadoo laandhuu horteeda lagu ciyaarayo ama shax lagu ciyaarayo war maxaad u ciyaaraysaa wuxuu ku leeyahay tahajjudkan ku sugaya war 10ka habeen waxa lagu nooleynaya tahajjudka kaliya maaha xaga dambe ayaan ka sheegi doonaa nabiga sallallahu alayhi wasallam Aisha isagoo u sheegay wixii ay qaban lahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam ehelkiisana waa toosin jiray ehelkiisu toosin jiray macnaheedu waxa weeye khayrkiyo wanaag uu la jeclaa iyagana waa toosin jiray wuxuu jiray ka faa'iideysta hatta haday hurdada ku sii adkaystaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waa ka kicin jiray waana tusaale ay tahay inaynu ku dhaqanno raggeena guryaha joogay ama walaalada la joog ama xaaskaaga la joog ama hooyada la joog ama qaraabadaada la joogay inaanad kaliya ka soo dhex kicin xaafada oo aanad masaajidka iyo cibaadada aadin iyagoo ehelkaaga dhamaan ay wada hurdaan oo hadhowto intaad soo cibaadaysato aanad u imanin xilliga suxuurta iyo cuntada aanad u kicin cuntadaba waad u kicinaysaa yeena calooshooda wax galiyaan inaad cibaadada u kicisaaba uga khayr badan nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas ayaa u sameyn jiray ilaahay baana amray وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أهلكاga أمر صلاة أو واصطبر عليها كل صبرتن معناه دوا maxay haka daalin waxa laga yaabaa aabayaasheen ama waxa weey rag guryaha mas'uulka ka ahi ubadka marka la kiciyo inaad ku dhigtooto oo aad kiciso intaad weysaysanaysaa hadana dib u seexdaan oo hadana maanta dhibaato aad ka dareento oo aad isku qaylisaan oo dhikar kugu kaco ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu amray nabi maxamed inaanu ka daalin caruurtii iyo ehelkii iyo dumarkii aan laga daalin maalinta labaad ha ku dhigtood labaad saddexaad ku dhigtoon week ku dhigtoon sanad ku dhigtoon waxay sheegaan culimadii salafka ee hore oday weyn oo daa oo 80 jira baa waxa la arkay isagoo caruurtay sii dhaleen salaada subax intuu guryaha soo maro salaada u kiciya markaas lagu yiri maxaa xaaji ku dhibay caruurtan iyaga iskicin doona kuwii aad adigu dhashay baa kicin doona waa awowku uu ahaabo kicinaya oo guryaha ku garaacaya markaas uu leeyahay aayadana ii taala oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ehelkaaga salaada amar oo kula sabirtan ha ka daan haday maalinta seexdaan oo bari seexdaan oo saadama seexdaan subax kasta adigu waajibkaagu waa mid cusub oo maalinta ku saaran lama oranayo sanadkii horaan ku daalay ee kanaan ka nasanayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam guntigiisu giijisan jiray culimada qaar kood waxa ku fasireen in looga jeedo jimaaca iyo galmada ayuu ka dheeraan jiray oo dumarkiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam 10ka habeen waa uu ka dheeraan jiray isagoo cibaado u go'aya diidaya in laga mashquuliyo baa nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaa u sameyn jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay al-allaama ibn rajab rahimahullahu ta'ala nabiga sallallahu alayhi wasallam ma ahayn mid ka taga haddii ramadaan ay 10 maalmood ugu timaadaay ay ugu dambeeyay ay timaado mid ehelkiisa cid kasta oo awoodaysa inay salaatu ka nabigu waa uu kicin jiray qodobka labaad walaalayaal nabiga sallallahu alayhi wasallam 10kaasi ramadaan ugu dambeeyay uu ku sifaysnaa waxay ahayd i'tikaafu la iman jiray i'tikaafku waa maxay waa inuu qofku masaajidka uu joogo weeye waqti go'an aad ku qaadato بمعنى marka salaadii cisho tukatay oo adanahaaga soo dhameysatay baad masaajidka soo gashay markaasaad ku sugnaatay ilaa iyo salaadii subax laga gaaray ama ilaa waagu ka dilaacay waqtiga inta leeg waxaad ugu tala gashay cibaado inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii aad masaajidka ugu cibaadeysato adigoo aan shay kale isticmaalaynin waa ka soo go'id laga soo go'aya adduunyada iyo waxyaabaha la xiriira oo loo soo go'aya cibaadada ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya loo cibaadeysto taas walaalayaal macnaheedu waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam i'tikaafkaas uu 10 ramadaan uu la imanay waa joogtay hatta tawafaahu Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ka oofsanay oo ka dhimanay nabigu waa joogtay sida Aisha ay tilmaamayso waxay leedahay Aisha radiyallahu ta'ala anha markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu dhintayna booskiisi waxa ku i'tikaafi jiray sawjaadkiisa iyo ooriyihiisa waa ku i'tikaafi jiray walaalayaal اعتكافك waxa uu ku ansaxaya masaajidka kuugu dhow ee jamaca laga tukado inaad ku i'tikaafto baa uu i'tikaafkuna uu kuugu ansaxaya arimaha saddexaad walaalayaal ee nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku dadaali jiray waxa kamida inuu aad ugu dadaali jiray laylatul qadriga la kulankiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka bari jiray walaalayaal habeenkii laylatul qadriga loo yaqaanay waa habeenkii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu quraanka u soo dejiyay waa habeenka khalaa'iqda
iyo qadarta iyo arsaaqda iyo cumriga iyo aajaashaba la qoro weeye habeenkaasi sanadkaasi wixii dhici doona wixii arsaaq la qaybin doono iyo waxyaabaha la mid oo dhan ba habeenkaasi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jaangooya habeenkani walaalayaal waa habeen nabadgelyo ah oo qurux iyo wanaag u saaxiiba ilaahay subxaanahu wa tacaalaana suurad dhan ayuu ugu magac daray oo suuratul qadri la yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkaasi waxa uu tilmaamayaa inuu yahay habeen barakaysan waxa uu tilmaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkaasi inuu ka khayr badan yahay 1000 sano culimmadu markay tilmaameen 1000 sano inta 1000 bilood baa ilaahay tilmaamay inuu ka khayr badan yahay habeenka laylatul qadri culimmadu markay sanada u bedeleen waxa uu noqday wax ku dhow 83 sano iyo dhowr bilood 83 iyo dhowr bilood camalka aad samayn lahayd baa uu la khayr yahay habeenkaasi camalka aad samaysaa laba ragcadood aad habeenka tukatay habeenka laylatul qadriga laba ragcadood aad tukatay waxa uu ka khayr badan yahay 83 sano iyo dheeraad bila ah laba ragcadood habeen walba tukanaysa labada ragcadood habeenka tukataaba waxay u dhigmaysaa khayrka iyo wanaagga laga heliyo 83 sano aad laba ragcadood si joogto ah u tukanaysa walaalayaal habeenkaasi waa habeen aad u qiimo badan nabiga sallallahu alayhi wasallam markii koowaad waa loo sheegay habeenkaasi xilliga uu yahay oo waa la yaqaanay habeenkaasi xilliga uu yahay oo dhan nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo garanaya habeenkaasi habeenka uu yahay laylatul qadrigu buu saxaabadiisa ku soo baxay sida saxiixyada ku yimi markaas uu arkay saxaabada qaar kood oo iskhilaafaya intii khilaafkii lagu dhex jiray baa nabiga sallallahu alayhi wasallam la ilowsiiyay laakiin waxa jira axaadiis fara badan oo tilmaamaysa habeenada ay macquulka ay tahay inay habeenadaasi ay noqon karaan qodobka koowaad walaalayaal waxa weeye dhammaan culimada muslimiinta oo dhani waxay u badan yihiin habeenka laylatul qadrigu inuu ku jiro 10 habeen ugu dambeeya culimada qaar baa jira oranaya laylatul qadrigu ramadaan 30keeda habeenba uu ku jira oo qaar kood waxay tilmaamayaan xataa habeenka koowaad ramadaan uu laylatul qadri uu yahay laakiin sida saxiixda ay adillada u dhow waxa weeye in laylatul qadrigu uu dhow yahay oo uu ku jiro 10 habeen ugu dambeeya nabiguna sallallahu alayhi wasallam xadiiska qaar kood waa uu ku tilmaamay saxaabada qaar kood baa habeen riyootay dabadeedna marka ay riyoodeen waxay ku riyoodeen iyadoo laylatul qadrigu uu ku jiro 7 habeen ee ugu dambeeya 7 habeen ee ramadaan ugu dambeeyay uu ku jira nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa u sheegeen markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri waxaan arkayaa inay riyooyinkeedu isku waafaqeen in waxa weeye laylatul qadrigu uu ku jiro 7 habeen ee ugu dambeeya ramadaan 7 habeen ee ugu dambeeya laga raadiyo axaadiista qaar kood waxa ku timay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri laylatul qadriga ha laga raadiyo markay ramadaan 9 ka harsan tahay markay ramadaan 7 ka harsan tahay markay ramadaan 5 ka harsan tahay markay ramadaan 3 ka harsan tahay su'aashiis weydiintana waxa weeye ramadaan markay 9 ka harsan tahay waa habeenkee weeye haddii ramadaan ay 29 ku dhamaanayso habeenka ramadaan ay 9 ka harsan tahay waa habeenka ramadaan ay 20 tahay weeye haddii ramadaan ay 30 ku dhamaanaysana habeenka laylatul qadriga ah ee 9 markay ka harsan tahay oo ku beegan tahay waa xalayo kale oo markay 21 ay bisha ay tahay marka ay 7 ka harsan tahay mar walba waxay ku xidhnaanaysaa bishu waxay ku dhamaato inagu miyaynu garan karnaa bishu inay 30 ku dhamaanayso inay 29 ku dhamaanayso waa maya mar haddaynan garan karin inay 29 ku dhamaan karto iyo inay 30 ku dhamaan karto inaan garanaynin 10 habeen oo 20 ka bilaabmaya in la wada diyaar garoobo oo la wada raadiyo baa waajib noqonaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu tilmaamayaa sida xadiiska hore baa inuu sheegnay laylatul qadri laylatu 27 habeenka laylatul qadrigu inuu yahay habeenka ay ramadaan ay tahay 27 waa xadiis saxiix ah weeye laylatul qadrigu waxa weeye habeenka ay ramadaan ay tahay 27 saxaabada qaar kood oo Ubay ibn Ka'ab uu kamid yahay waxa uu ku dhaartay in habeenka ay laylatul qadrigu ay tahay inay tahay habeenka ay ramadaan ay 27 ay tahay waana dhaar saxaabi weeye wax sahlan ma aha waa dhaar saxaabi weeye sida awgeed walaalayaal culimadu waxay tilmaamayaan dadaal dheeraad ah in la sii galo habeenada qaar koodna dheeraadka la sii kordhiyo sida habeenada 22aadka 23ka 27ka 29ka dheeraad in la sii sameeyo oo dadaalka la sii kordhiyo taa macnaheedu maaha habeenada ay tiradu siman tahay ee 22 iyo 24 iyo 26 inaan la diyaar garoobeynin maaha oo sida aan imika sheegaynay 7 markay ka dhiman tahay bishuna ay 29 ku dhamaanayso habeen tiradu ay isleeg tahay laylatul qadrigu ku beegmaya sida ugu habeenayu ka dayacmo habeenadana dheeraadka sii kordhi oo ducadaada iyo dadaalka kordhi habeenada kalena dadaalkaagu yaraan
ومر والبوحة وياها لسيد ذاله ولا ليال وحنا كسر جبينيا رمضان هدي دمانيسو وأي جباي مريسو أنتي وجوب النادي رمضان ويتكتين لكن أنتي وجوب اللي جب النادي بار رمضان حبي هذا قضب كامل كو علامة سو رمضان أنتي وجوب النادي ويتكتين لكن أنتي وجوب اللي جب النادي بحر رمضان سيدا وجود ولا لينا كفاية ديسن وحوجونا كفاية ديسن كرنا وحوي إثبات لما استنينا نفهم نقص منه لما حمانا هي معاصد ودنا كديرانه خير كي وناجينا وديرينه صلاة مساجد الله سوا عمره وصلاة مساجد الله إيماني مرك الله قيمه إلا جسوا ديريه قرآن كلا آخرته ليسكت أي قرآن كأنت يوهر سنتين واحد بدل الله آخريه ولا جوع العليه هذا مرة ما ينكرته هذا الله مرة ما ينكرته هذا صدق ما ينكرته هلا جفا يليسته سوجيت كان ولا ليال هدي أداشين القرآن آخرته ما ذكر عدلت مادات كداشوا محاضرات كديسوا وعد لي محاضرات واكو بحان موبيل كاي كلا سودك هدانا ده هيسن ولا لا يهلك غورغا جوغا هيستا قرآن كي دغرغو halka ka baxo riwaayadaha iyo musalsalaadka iyo waxyaabaha la midka ah laandhuudu ay kamid tahay shaxdu ay kamid tahay waxaas walaalayaal ajarka ay ka nusqaaminayaan ajarka ay ka yareen doonaan dibna waa iskaga ciilka bii doonta alla ilaahay ma ka faa'iideysta maalmahaasi soo maray ee aanan garanaynin dib inoo soo mari doonaan waxaad ogaataan walaalayaal waliba dhalinyaro waxaad ogaataan geeridu maanta dhalinyarada ku badan tahay bariye hore waxa la oran jiray marka uu ninku yaro weynaado waxa la oran jiray geeri uu sugaya ama waxa weeye geeridii baa u soo dhawaatay maanta cidda ugu badan ee dhimatay waa dhalinyaro weeye waxa maanta aad u fara badan mawtul qaflah yeen si degdeg ah qofku u dhinto wadnaha istaagay uu seexday ama uu soo toosin suuligu galayo waa lagu jabiyay albaabka iyo waxyaabo lamid ah wad maqlaysa kursigu ku fadhiyo kursigii baa la dhacay adamaaragta tig baad raacaysa halkaad ka raacaysa tigtaas inay booyad gali doonto iyo inay gaari kale oo weyn ay iskali doonaan war uma haysan goormaad dhiman doontaa marka aad dhimato haddii aanad dadaal hore aanad sii samaynin calaacal baa kaa horeeya inta aanu calaacalkaasi aanu inoo imanin yaana inaan maanta ka faa'iidaysano saacadda aad imika joogto ayaad leedahay dad badan waxay isku mashquuliyaan waxa samayn doonaa mustaqbalka samayn doona su'aasha isweydiinta leh waxa mustaqbalku waa goorma ma waxaanad adiguba gacanta ku haynin bad mustaqbal ka dhiganaysa hadaa taada 2023 ka waxa sii qorsheysan yahay ha ku qorsheysnaadaan ma gaari doontaa saacada aad haysatay waa daqiiqada aad imika ku sugan tahay weey ma garan karno dhamaanteenba daqiiqada imika ku jirna daqiiqada ka dambaysa inaan gaari doono ilaahay u baaw salaad duhur baynu jimca ayaynu tukanaynaa inaan casr masaajidka soo gaari doono yaa huba cid hubtaay ma jirto waxaan walaalayaal isku dhiiri galeynaa inaynu aad iyo aad uga faa'iideysano ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu barino دماء المسلمين تنلو دعيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أنا إن يكير النغو دعاء أنيمك كنت عيني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا بأي حسوسية قضبا حق هريري ودبا كتل مامي دونا عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم وحي كنت للنبي إلهي هدي إلهي وافتيها بينك ليلة القدر كمحاني لحظة من السؤال وين عين هدي إلهي هذيك ليلة القدر وافتيها محاني لحظة ويتي عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ويدينيسا نبي وحوكول وحد هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إلهي وعفسك إله اللهم إنك عفو إلهي وأديك يا عفس بدنا وعفسك كتل ما من الصفات هذا أي تاي إلهي واتعشها إني سعفينا واتعشها يعفسك وردنا إلهي وعفي انت هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل حديث كامرك علماء كور رمي أنا شرح يا روحي المامان عائشة وحي لا دهي نبي إلهي وهدان ليلة القدر قال لك كل محان فلا محان سمايا محان دها نبي كمولا إن صلاة تهجدك وصلاة الليل أنت كوبية تمنك هذين ما بلعبته إلى أي صدق هذين ما صلاة كتير نبي كمولا إن عائشة مصحف ككتاب القرآن كأنت تكلفرته لما أنت والآخر إلى أنت تكجع دور نبي صلى الله عليه وسلم كمولا ذكري كلا لك على لكن محو كل كلية دعيسو وحي علماء التلمامين وحا أقوين هذا هبين كان ليلة القدر قاعد سميساين ودعاء والنقضه نفت هذا ودعاء إلهي سبحانه وتعالى عافس كضرب وإلهي ويديسين وكعافيهم إلهي سبحانه وتعالى أدقوا أمانيا دعاء السيدة كسا أرورتين يا وحبا لك بدني
دعاء وحركة سوادود مركي دعيني اللهم إنك عفو كريم حليم أنت هذا حمس أرورين دعانا وحوونا أكسن أنت النبي صلى الله عليه وسلم الله قال كل ما إن دعيت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني دعاء سوال علي على كل علينا مركزنا إلهي سبحانه وتعالى أمبرنا دعاء عرب كيرو حلقة بصدق مال صبح هبين حلقة تكتب الدعاء كل علي إلهي سبحانه وتعالى ونجا أقبل دونا إلهي سبحانه وتعالى ولا عليه ويديسنا إن إلهي دمجنا دافع إلهي دمجنا دافع إلهي دمج والد كان دافع إلهي والد كان والد كذا الله هو نحرسته سيدا ينوسو كوريين أو ينودر ينام إلهي سبحانه وتعالى هو نحرسته إلهي سبحانه وتعالى وكبر يا أنت لمتين إلهي سبحانه وتعالى ونحرسته أنت النور إلهي عافمات يوناك إيمان ينبت قليا الله ينقلنا عليه إلهي ودك هينوها جاتشين إلهي ودك هينوها جاتشين إلهي حكومة هينوها جاتشين حكم كالشرع جاينا وحكم الله سبحانه وتعالى هينوها قدقوا إلهي سبحانه وتعالى مدح قار وناكسن وأنا نجش قيسنا ينوش قيا الله كيرو إلهي علماء هينوها إلهي إلهي علماء هينوها إلهي وضياش يا عقاش يا صلاة أنت إلهي سبحانه وتعالى هينوها بركين إلهي خير كي وناجه هكسره هكذا كوا خير كي وناجه ودداله إلهي دمر كهينو إلهي إلهي دمر كهينو حفظه ولا الذين هبريروين كين هويوين كين إيدوين كين يدمان يدمر كهينو قبله إلهي سبحانه وتعالى دمان هينو إلهي إلهي عروتها هينو بركين إلهي عروتها هينو بركين إلهي عروتها هينو بركين إلهي سبحانه وتعالى روب كيس خير كقبا إلهي هينو سياجي إلهي روب كمال آنو قارن الله قارسيه ماشو قارن إلهي دوق وناكسن عكسو صارو إلهي سبحانه وتعالى هينو بركيه حولها يدوق يدول كما الله هينو بركيه إلهي سبحانه وتعالى رمضان ما صاروا يدو أن ينودم مدافن إلهي رمضان يعني بحن أدو أن ينودم مدافن إلهي رمضان يتقن أدو أن قورها يجن نارتك حرين إلهي يوم نجمد كوا هبين كليلة القدر يلا كل ما إلهي يوم نجمد كوا هبين كليلة القدر يلا كل ما إلهي يشرك يا عفي إلهي يشرك يا عفي أضومها جيبان نهاي تلع سنة حمان تبدنا جابس تبدنا إلهي ينودم مدافن يشرك يا عفي إلهي أنت يا هالكم فردي أنت نجمع غنبا سنة الفردوس إلهي ونقول صلى الله على محمد وعلى آل محمد